Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Ronaldinho ayaa ammaanay naadiga reer Catalonia ee hogaaminaya Xavi Hernandez isagoo xusay in Blaugrana ay wax walba u hayso xilligan sidii ay ugu soo laaban lahayd hoggaanka sare. Wargeyska Sport ee dalka Spain ayaa waxa uu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Ronaldinho waxaanu yidhi Barcelona waxay haatan ku hoos jirtaa hoggaanka Xavi ee marxaladda kala guurka. Waxaa jira doorsamayaal badan, waxaan rajaynayaa in wax walba ay si fiican u dhici doonaan. Barcelona waxay haysataa tababaro fiican, dhalinyarada hadda jooga waxay leeyihiin tayo badan. Runtii Barcelona waxay haysataa wax walba oo suurtagal ah oo ay ugu soo laaban karto hoggaanka. Si kastaba ha noqotee, Barcelona ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka La Ligaha iyadoo leh 16 dhibcood 6 kulan oo ciyaartay, waxayna 2 dhibcood ka dambeysaa kooxda hoggaanka haysa ee Real Madrid.